waa qisooyinka kowniga ka dhaca oo la yaabka badan leh waa qisooyinka runtii maskaxdaada marka aad sii eegto aanay si toos ah ugu dhacaynin iyadoo waqti badan laga dhaadhiciyo mooyaane waa haweeney Mauritaniada waxa ay jirtaa cimrigeedu 50 sano waxa ay nolosha la soo wadaagtay 55 nin oo ay mid walba soo guursatay waxa ay ku nooshay waddanka Mauritania iminkana waxa ay musharaxad u tahay ama ay u taagan tahay inay guurkii 56 isu sharaxdo iyadoo aan weli ka laabanaynin waatan waxa ay ku nooshay guri iska danyar ah guriyihii hore ee qadiimka ahaa waa laga yaqaanaa xaafadda iyo eeriyada ay ku nooshahay oo macruuf ay ka tahay waxa ay guursatay 55 nin markii la sheekaysto laga waraystay 55 nin iyo xaaladkoodii runtii waa ay ka sheekaysay midna walbana waxa ay sheegtay inay ka qaadato marka ay furaan warqadii ay talaaqa waxa ay sheegtay haweeneydan ninkii ugu badnaa inay isqabeen 15 sannadood halka ka ugu yarna ay isqabeen 3 bilood iyo 2 toddobaad oo kaliya waxa ay haweeneydan carabka ku dhufatay in ay runtii jeceshahay in ay ka sheekayso 3 nin oo kaliya halka ay inta kalena jeceshahay inay xitaa xusuusteeda ay soo galaan ay runtii ka murugooto xanaaq iyo walwal badanna uu soo maro waxa la odhan karaa waa tijaabadii ugu dheerayd ee qof bini'aadan uu noloshiisa ku sameeyo haweenaya marka ay nolosha la wadaagto 55 nin oo mid walba dabeecad iyo dhaqan gaar ah uu leeyahay waa daraasad waa jaamacad waa waxbarasho dhan oo buuxda oo wax lagu qaadan karo waxay sheegtay haweenadaas qisooyinkeeda la yaab kale ka mid ah in ay tiri 52 nin marka aan hadalkooda maqlo waan murugoodaa oo raggii soo guursaday ka mid ah halka 3 nin oo kaliya aan jeclahay inaan ka sheekeeyo xikaayadahoodii iyo taariikhahoodii ama na soo kala dhex maray waa arrin runtii in loo fiirsado u baahan marka ay 55 nin ay la wadaagtay oo ay 2 kaliya ama 3 kaliya ka xusto inta kalena ay buugeedaba ka saarto وهو معروفة والله يا غانا كنت سنة يجرتا عافتا كذا نوشهاي وكعان وناكتي نمن جورستو أما جورسي قبل نايد إمك واحد تري وحنوها هاي ديار إن عنكي كنت لحد جورسدو حتى هدو تلفون كي جسوجر عنا هراء أيام وقبنا يا موابين دونه عرف حلالي هدو هي سوجلو وأنا تتعبد وأسي وضيا أنت أي رجل يجمع رميان runtii waa arrin la yaab leh waa arrin qisas iyo xambaarsan cajaa'ib aan adduunka koonka ka dhicin sida aynu la wada soconno gabadha Soomaalida ama qofka Soomaaliga ee ugu badan marka la yiraahdo naagta imisa nin baa furay ama gabadhaas imisa nin bay kala tageen ta ugu badan waxa laga yaabaa inay tirsato 9 nin hase yeeshee 55 nin marka ay marayso waa arrin runtii yaabkeeda leh waxaa barnaamijkan idiin soo gudbinaya anoo Cabdiraxmaan Muuse halkaad kala socotaan waa TV-ga caalamiga ee gaari hoostii mar walba aad kala socotaan barnaamijyo xiiso iyo dardar leh oo aad halkaasi ka dheehataan waatan waxa ay leedahay warqadii ugu dambeysay hadda ninkii ugu dambeeyay uu heshiiyey ayaan gacanta ku hayaa iyadoo gurigeeda iyo danaheeda aan wax muraada iyo wax dhibaato ay toona uusan ku haysan oo iskaga mashquulsan hawlaheeda gaarka ah marka ma kana kala qoddo kulmi doona barnaamijkan oo kala waa qisooyinka runtii in la ururiyo u baahan in laga taxadaro u baahan in laga fiirsado u baahan in la soo koobo ummadeena iyo bulshadeena loo soo bandhigo waa qisooyinka u baahan runtii qisada tan waxaad kala socotaan TV gaari hoostii fadlan share and like sii gaarsiiya asxaabtaada kale iyo bulshada inteeda kale waa tan oo remote-keeda iyo TV-geeda soo daawanaysa